madaxa Mossad ee Israel ayaa sirdoon ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Washington si uu uga hortago ayaa la yiri heshiiska hubka nuclear-ka ee dawladda Mareykanka ay qorsheynayso in ay dib ay ugu laabato waxaana Mareykanka uu la tashiyo ula leeyahay wadamada Yurub barnaamijka nuclear-ka Iran ku saabsan dawladda Mareykanka ayaa iyadu waxa ay shaaca ka qaaday in ay soo jeedinayso Iran in ay qaado tallaabooyin xukuumadda Washington iyo Tehran ay ku horumarin karaan si loogu laabto heshiiska nuclear-ka Washington waxa ay leedahay weli waxaa jira kanaalo furan oo la qaadi karo inta aysan bilaaban dawladda Mareykanka in ay wada hadal ay la furto dawladda Iran ama ba aysan aqbalin soo jeedimaha ka imaanaya dawladda dalkaasi Iran afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Al Jazeera waxa uu sheegay in wada tashiyo lagu kalsoon yahay uu Mareykanka uu la leeyahay wadamada Britain, Jarmalka iyo France iyo sidoo kale wakiilada sarsare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee wadamada Yurub waxaana uu doonayaa la yiri in uu ku qanciyo sidii ay Mareykanka dib ay ugu laaban lahayd heshiiska nuclear-ka ee wadankaasi Iran sidoo kale waxa uu kala hadlayaa Mareykanka wadamadaasi tiro qadiyado dhowr ah oo ku saabsan walaaca laga qabo xukuumadda Tehran oo iyadu sii horumarinaysa barnaamijkeedii nuclear-ka afayeen u hadlay ciidanka Mareykanka waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay wada tashi ay la sameynayso mas'uuliyiinta Yurub iyo dhinacyo kale oo uusan carabaabin waxaana jirta ayuu leeyahay in qadiyadaasi hadda horumar laga sameynayo warka ka soo yeeray dawladda Mareykanka ayaa jawaab celina waxa uu yahay ayaa la yiri warkii dalab ee horey uga soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Mohammad Jawad Zarif oo isagu sheegay in uu doonayo in midowga Yurub ay dhexdhexaadiyaan Iran iyo sidoo kale Washington waxa sidoo kale uu ugu baaqay in dib loogu laabto heshiiskii Iran ee hubka nuclear-ka ay dawladda Mareykanka kala saxiixdeen Zarif waxa uu shaaca ka qaaday in ay jirto wada looga adkaan karo oo ku saabsan in lagu xaliyo muranada hadda hareeyay barnaamijka nuclear-ka Iran heshiiska waxaana sidoo kale uu sheegay in dawladda Mareykanka Iran ay ka go'an tahay marka ugu horeysa in ay dib ay ugu laabtaan barnaamijkaasi nuclear-ka ee sanadkii 2015 la saxiixay balse waxaa ka baxay waqti dambe madaxweynihii hore ee wadankaasi Mareykanka Donald Trump sanadkii 2018 afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in ay jirto wada tashiyo uu Mareykanka uu la leeyahay xulafada iyo sidoo kale saaxiibada Koongareeska wadankaasi Mareykanka inta aan la aadinayaa la yiri in heshiiskaasi dib loogu laabto waxa sidoo kale uu sheegay warbaahinta wadankaasi Mareykanka Mr. Price in aysan jirin hadda wada xaajo toos ah oo la galayo Iran tan iyo markii uu la wareegay madaxweynaha cusub ee wadankaasi Mareykanka Joe Biden xilka madaxtinimo waxaana jirin ayaa la yiri xiriir toos ah ama baqad telefoon oo horumar looga sameeyay in ay wada hadlaan Iran iyo sidoo kale Mareykanka afayeen u hadlay midowga Yurub Peter Satano ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in midowga Yurub uu kala shaqeyn doono Washington iyo Tehran iyo dhinacyada kale arrimaha quseeya heshiiska nuclear-ka Satano ayaa waxa uu sidoo kale u sheegay midowga Yurub in uu doonayo xaqiijinta in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay dib ay ugu laabato barnaamijka nuclear-ka sidoo kale Iran inay iyaduna ay ka soo bixi doonto qodobada ku xusan barnaamijkaasi iyadoo sidaas ay jirto ayaa warbaahintu waxa ay leedahay waa warbaahinta Israel in madaxa sirdoonka ee Israel Mossad Yossi Cohen uu ku wajahan yahay wadankaasi Mareykanka toddobaadyada soo socda halkaasi oo la sheegayo in uu ugu soo bandhigi doono maamulka Mareykanka dhowr qodob oo quseeya macluumaadka sirdoon ay Israel ay haysato kaasi oo ku saabsan in lagu hakiyo in Iran ama dawladda Mareykanka ay dib ay ugu laabato heshiiska nuclear-ka jariidada Jerusalem Post ee Israel ka soo baxda ayaa waxa ay soo xiganaysaa wasiirka tamarta Israel Yuval Shatner ka oo sheegaya in Iran 6 bil kaliya ay ugu harsan tahay in ay soo saarto ayaa la yiri maado waliba oo quseysay ayaa la yiri sidii ay u heli lahayd hubka nuclear-ka jariidada waxa ay leedahay oo wasiirka soo xiganaysa in Iran kaliya waqti dheer ay u harsan tahay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Iran ay soo saaratay maadooyinka lagu bacrimiyo uranium-ka si loo helo ayaa la yiri barnaamijka nuclear-ka waxay sidoo kale jariidadu ay leedahay maamulka cusub ee wadankaasi waa maamulkii hore ee wadankaasi Mareykanka ee Donald Trump uu hogaaminayo ayaa horey u dhaawacay ayaa la yiri
barnaamijkii nuclearka waddankaasi Iiraan kaasi oo qusayay in ay sii horumariso barnaamijkeedii uraniumka. Iiraaniyiinta ayaa hadda waxa ay u baahan yihiin ayaa layidhi si qorshahaas ay u fuliyaan muddo 6 bil ah, balse waxaa la tilmaamayaa in haddii 6daasi bil ay helaan ay suurtagal ay noqon doonto in sanad ama 2 sano gudihiisa ay ku sameysaan